الرحمن الرحيم دولة فدرالك الصومالية iyadoo ka duulaysa madax banaanideeda qaran ee uu damaanad qaadaya xeerka iyo qaynuunka caalamiga gudanaysana waajibaadkeeda dastuuriga ee ka saaran ilaalinta midnimada qarannimada iyo xasiloonida dalka waxa ay go'aansatay inay xiriirka diblomaasiyadeed u jarto dowladda Kenya dowladda federaalka Soomaaliya waxay u yeeranaysaa dhammaan diblomaasiyiinteeda ka jooga Kenya inay dalka dib ugu soo laabtaan waxayna ku amraysaa kuwa halkan ka jooga dowladda Kenya inay dalka kaga baxaan muddo 7 maalmood ah oo ka bilaabanaysa caawa oo bishu tahay 15 December 2020 shacabka Kenya dowladda federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa shacabka Kenya inuu yahay shacab jecel nabadda iyo wada noolaanshaha shucuubta gobolka ayna kala dhaxayso shacabka Soomaaliyeed xiriir qoto dheer oo ku dhisan deris wanaag iyo wax wada qabsi balse hoggaanka maanta ee dowladda Kenya uu ka shaqeynayo kala fogeynta labada shacab ee wadaagta sababta go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya waxay u gaartay go'aankan si ay uga jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan ee isdaba joogga ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay ay dowladda Kenya ku haysay madax banaanida dalkeena ugu dambeyn dowladda federaalka Soomaaliya waxay xaqiijinaysaa madax banaanida qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed si waafaqsan dastuurka dalka shuruucda iyo xeerarka caalamiga wax gorgortanana haba yaraatee dowladdu kama gelayso xorriyadda madax banaanida iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed